labada oday baan siinaya oo mid walba kelmadiisa gunaanadka oran doono markaa ka bacdina boolkan qaadina hala sii sheergareeyo ninka la leeyahay Teera 11 baa ka qaadanaysaa marka ku dhacdo 3 daqiiqo haysataa gunaanadka marka laga yimaado doodi waa marka kugu dameysay laakiin fursad kale oo 3 daqiiqo ah oo aad ku soo gunaanado baa heli doontaa waxaan idinka codsanayaa 11 tuusan dhicin inaad sii sheergareysaan si loo helo dad badan oo boolka ka qayb qaata boolku waa codayn sidii codaymiin la qaadi jiray oohin iyo qosol aan halkaas soo dhiganaynaa taas oo aan idinku kala weydiinayo madaxweyne farmaajo ma loo darsaday mise madaxweyne xasan sheekh waa lagu liibaanay ninka odayga ah lama tabin Teera 11 baa ka qaadanaysaa eeda culus baa lagu soo jeediyay ku soco adkaatay aad ayuu mahadsan yahay shiina culay boos eeda culus leegama soo jeedine walaalkay cabdiqaadir boos baa derbiga madaxa ku garaacay derbiga madaxa uu ku garaacay waxa ku cadaynaysa wuxuu yiri adeer xasan madaxweynaha waxa taageersan buu yiri shacbiyadii oo dhan shacbiyada uu sheegayaa gabigiisaba taageerayaasha baraha bulshada ka taageerta haddaan halka ka tiriyo toban wiil aan saaxiibanaho walaalkay boos ku jiro marna ka xanaaqa markuu ka yaabo oo yaa warin karqabahana taageeraysa kadib marna soo fuulo la soo maslaxo ay yiraahdaan warin adeer kaala odagaha naga tagine oo ninka 10 wiil madaxa ku sidaan ee isku haybta ninkanna de waa ninka carshiq iyo maqrib laga taageero oo umadu ku midaysan tahay hadii icon ama qof hogaamiye ay Soomaalidu ku midaysan tahay la walaahi baan ku dhaartay boqol laga taagaayo waa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan kale aan u soo laabanayaa boos uu ka hadlayo waxaan kaga tagay horta taa ismahadin maaha isabaalin baan oran karaa way sasabaya boos naftu ma weelinaya weelintiisa halkaasaan ku dhaafayaa talabaad aan u noqonayaa waxa weeyaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa lagu xasuusan doonaa 5 arrin xasan sheekh maxamuudna 5 arrin baa lagu xasuusan doonaa maxamed waxa lagu xasuusan doonaa inuu yahay mid hogaamiye Soomaali ku midaysan tahay waxa lagu xasuusan doonaa inuu yahay amaane xajiskii ummadda Soomaaliyeed waxa lagu xasuusan doonaa inuu yahay kii hawadooda u soo celiyay baddiina dacwadda taaleyna guusha ka keenay waxa lagu xasuusan doonaa kii iyadoo ciidan lahayn oo ciidan gaajoonayo 9 bilood madaxweynuhu ka dhacay mushaharkoodii diraysna aan lahayn oo kaba dacasa xiran kii u dhisay gorgor iyo harim cad iyo danab iyo inamada aan magaca loo bixin ee 3 sano tababarka kamaan militariga qaatay waxa lagu xasuusan doonaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ahaa shakhsi ka maran qabyaalad xasan waxa lagu xasuusan doonaa madaxweyne intii ummadiisa saqdhexa bangigoodii dhexe jabsaday haddana dib u soo laabtay ee maanta kala irdeynaya qaadwalaha ka noqday waxa lagu xasuusan doonaa xasan sheekh in isagoo shalay lagu xamanayay kala xigtaynta iyo kala irdeynta iyo kala abtirinta shacabka Soomaali inuu maanta madaxtooyada qaranka shaqaalaha jooga oo dhan oo intaas waaxood ay ka kooban tahay oo muunadii iyo muraadii ummadda Soomaaliyeed ahayd in ay ku taraxaan hal qof oo ka soo jeeda koonfur galbeed iyo qof kale oo ka soo jeeda beeraha yareer masaakiinta waxa xasan sheekh lagu xasuusan doonaa madaxweynihii mar labaad soo laabtay ee la soo laabtay intii lagu diidanaa ee meedisujuudida iyo shisheeye kalkaalnimadu ay ka mid ahay xasan sheekh waxa lagu xasuusan doonaa madaxweynaha kaliya ee maanta ay taageerayaasha ummadda Soomaaliyeed ay kaga soo hadhay in saluugsan oo la hayba oo walaalkii cabdiqaadir boos ka waa ka dhacday boos gunaanadkii weeye ka bacdi boolkan qaadi waayahay daqiiqo waaya horta aniga u hadli maayo nin guul dareystay oo saaxiibkay Teera oo deegaankiisii dadkiisa uga soo gacay Farmaajo la yiraa oo guri ijaar hadda ku jiro horta saas u hadli maayo inaa wax yariya fiican aniga nin guuleystay oo baban ah oo laan dheereenaya ahay oo xukun ku soo laabsiina fadhin doonaba ogow Teero midda xasan sheekh waad mucaaradaa qofka markuu qadeeyo oo laan dheereeyahay wuxuu awoodaa inuu dhaho ninka uu taageero xataa waa sidaan way khaldan tahay shakhsiyadeeday wax ka sheegaysaa explain waxbay sharaxaysaa taas inaanan qof isku dhiibinba aniga ayay sharaxaysaa inaa wax dhaliili karo oo deegaan u laabta leeyahay kaan hor joogana dhihi karo waa khaldan tahay haddaan isfaham weynana aan laaba karo ayay horta ku tusaysaa 5 arrin oo iska tirsatay nin laga guuleystay xukunkii waayay wuxuu rabo waayay 5 arrin iyo 100 arrin oo suubsan karaa anigu suubsan maayo laakiin waxaan leeyahay mar haddii odagii Farmaajo ahaa ceeb waxa ku filan
odagii farmaajo ee madaxweynaha noqda ninkuu ka guulaystay inuu haddana dhaho warniyahow war furihii madaxtooyada soo celiyey soomaalidu waxay dhahdaa ushaada ninaad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa horta xasan saasuu sameeyey ushiisa ninoo ka qaadan karo u dhiibtay xilligii la gaaro war ii soo celi waa lagu mudaaharaada waa lagu mashxarada laakiin siyaasad waxba kama hayside ushi ii soo celi horta taas waaye teera ani waxaan leeyahay marka farmaajo maanta waa muwaadin soomaaliyeed adiguna waxaa tahay muwaadin soomaaliyeed waxaa jeclaan lahaa adigii farmaajo inaad isku si uga shaqaysaan ama aad isku si ula shaqaysaan xasan sheekh maxamuud waa madaxweynihiina rasbagta aad muujisaan dalkan ninkii ay soomaali aamintay ayaa gacanta ku haya aqlabiyad markii la dhaho teera iyo ciyaal comment aqlabiyad maaha waxaan kaa rabaa inaad dhahdid baarlamaanka soomaaliyeed waa tuugo xasan sheekh waa tuug soomaali waa tuugo idheh sababta maxay tahay baarlamaanka soomaaliyeed qabiil walba ma jeerteen dhulbahante leelkase surre madaraxan weyn qabiil walbaa ku jira inta 210 xildhibaan hawiye maaha ee waa eliidka labeenta indhaha soomaaliya waay ayagaa dhaa xasan sheekho waa kugu ceebobnay waan kugu gardaroonnay waana la siray ee xukunkii ku soo cesho fiiri siyaasadda ayadaa hadlaysa teera ma hadlaayo boos ma hadlaayo warniyo teera walaalkayaa tahay farmaajaa ceeb la fadhiyo tv ka soo hor muuqa waaye waase kugu hambalaya inaad geesi tahay farmaajihii dhunta aad u hadlaysa adiga waa kugu hambalyanaa weliba waxaa tahay shaksi qof guul daraystay weliba rajo u sii yeeli karaa tahay war farmaajo ijaaro ku jiraa tvna ka soo muuqan maayo mana hadli doore xildhibaanadaa doorta qabiil iska dhaafe kuwa kugu heybta ah farmaajo soo celiyey xasan sheekh soo celiyey walaalow u duceey mucaaradnimo 5 sano ah waqti ka qaadane madaxweynaha la shaqeey waa maasantiin gunaanadkii intaas u ahaa intaana siin oo uusan isaguna soo gabagabeyn teera cabduqaadir boos 2 jeer waxaa ka dhawaajisay inuu farmaajo ku jiro guri kira ah madaxweynihii horeeto isagoo 5 sano iyo bar waddanka ka talinayay hogaamiyaasha afrika lagu yaqaano musuqmaasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne isla markaasna hadduu ku talagalo awoodu lahaa fiilooyin badan sidii madax badan oo isaga ka horreysay uu dalka ka jeexdo soo ammaan uma aha maanta inuu guri kira ah ku jiro isla markaasna ka marakici mayso inuu maalkii bulshada iyo dowladda uu ilaaliyey oo dowladdiisu ay musuqmaasuq ka madax banaaneed booska su-aashaa ka jawaab halkoo daqiiqo ummaddu ay xitaa qofka iga soo horjeeda aan ku qancin karo fiiri farmaajo isagaa sheegay inuu guri ijaara galay hadda dood ma taagno meeqo guriyuu leeyahay aniga nairobi keliya meel la yidhaha heligam 2 guri inuu ku leeyahay oga ma wuxuu ka dhistay lacagtii bufaalo ma ka dhistay maya uganda tanzania wuxuu ku leeyahay sug iga soo dhexgeli feerehe ani kaama soo dhexgalo guri ijaara in la dega qayb kamida siyaasadda waay anigu ma dhahayo guri hebel guri ma dhahayo laakiin xasan sheekh maxamuud asaa turkiga ciidamadii qaranka isagoo la hadlayo inuusan guri lahayn asaa sheegaba kanna asaa sheega inuu guri ijaara leeyahay marka waxaan rabaa saan u aqbalay inuu teera u aqbalo haddii dulqaad siyaasadeed u jiro inaa u aqbalo waay haddii laakiin siyaasadda ay tahay guri ma leeyahay dood kale oo shiino cule noo qabanayo waay oo dukumentiyadii iyo caddeynta ay keenayo waay laakiin hadda waa u xukminaa wuxuu isaga ii sheegay guri ijaara inuu galay waa ii sheegay laakiin ogow teera waxaan leeyahay ishiina iyo shacabka nin 80,000 dollar bishii qaata guri ma laha xamar yaa guri ku lahaa kara marka ma bajaajlaya guri ku leh yaa leh siyaasadda waay waxaas hadda habeen kale ka doodaynaaye odaga guriga ijaar ka degan gaar allah siiyaan leh waa yahay boolkii baan qaadaynaa inteena boolka qaadin inoo sheergareeya 5,100 bay maraysaa boolkaan qaadanaynaa idinkaa kala codayn doona dadka daawanaya si dadku ay inoo ku soo bataan sii sheergareeya ninka la yidhaahdo cabdisaaq teera iyo 20 baa waa 3 daqiiqo oo kuugu dambaysay oo aan gebagabayn lahayd waaye marka iyo 20 aan ka qaadayna ha intaada boolka aadin
reaction markaa ما shaakir iyo reaction كنا وعدتك reaction كودا كنا وإذا كنا وإذا marka waxaan ka codsanayaa hal sii